maayarka maamul magaaleedka wajaale dhinaca Itoobiya Mukhtaar Maxamed Cabdi oo maanta waraysi khaas ah ku siinay telefishinka caalamiga badda cas 24 TV halkan xafiiskiisa ayaa waxa ka hadlay xaaladda guud ahaan maamulka magaalada Tog Wajaale sidoo kale maayarku waxa ka hadlay waxyaalaha uu qabsoomay muddadii uu joogay xafiiska maayar Mukhtaar Maxamed Cabdi oo isagu ka hadlaya mashaariicaha waqti xaadirkani ka fulay maamulka magaalada Tog Wajaale ay fulisay maamulka magaalada Tog Wajaale iyo waliba dawladda deegaanka Soomaalidu ayaa sheegay sida tan guud ahaan maamulka magaalada Wajaale maadaama ay tahay magaalo xuduudeed shaqooyinkii loogu talagalay kulli sideed u socdaan haddii aan ku horeeyo dhinaca xaaladda ammaanka magaalada waa nabadgelyo wax dhibaato kama jiro dhinaca biyaha magaalada Wajaale waxay leedahay ila biyood ilaa 6 ceel oo bardhaweyd 4 ceel xafiiska heer deegaan oo kaashanaya wasaaradda biyaha ee heer federaal ay noo qoday iyo sidoo kale 2 ceel oo xafiiska waraabka iyo duuxoonku noo qoday ayaa ka jira magaalada Wajaale sidoo kale laba waxa jiray ceel hore kuwii hore shaqeynayay ahaa labada ceel mid baa naga xumaaday ceelasha waxa jira mashruuc ay ku baxayso 250 milyan oo wasaaradda federaalka ee biyaha ay maalgelinayso xafiiska biyuhuna uu fulinayo mashruucaasi daraasaadkii wajigii hore waa la dhameeyay daraasaadka qaybta hore waxay ahayd in la soo daraasaday bal goobaha biyaha laga helayo magaaladan goobahaasoo 30 sano ee soo socda in la helo biyo ku filan magaalada Tog Wajaale maadaama ay tahay magaalo ballaaran marka ilaa 4 ceel bay qodeen oo biyihii laga soo saaray xafiiska waraabkuna 2 ceel buu ku daray 4 ceel kuwa xidhamaan u nimidno daboolan oo aan shaqeynin laakiin biyihii laga soo saaray oo kaliya afka laga daboolay oo sugay mashruuca biyo gelinta ee heer federaal in la sameeyo kuwa sugayaan u nimidnay xaaladda markaan qiimeynay ceelashii hore sii jirayna 2 ceel baa mid baa xumaaday sidoo kale xafiiska heer deegaan maadaama lagu jiro xilli abaareed inta badanna bulshada dadka ka imanaya goobihii abaarta ay magaalada dusheeda soo degayaan biyo ku filan ayna jirin magaaladii iyo dadkii aaga baadiyaha ilaha biyaha laga soo saaray degan ayna jirin waxaan qorshe u qaadanay inaan ceel kalena bal sidii aan soo saaran lahayn aan helno markaana wax xafiiska heer deegaan biyaha kaashanaan ceelka kalena soo saarnay marka guud ahaan marka 3 ceel baa shaqeeya hal center baa magaalada ama hal xarun caafimaad baa ka dhisan xarunta caafimaadna ilaa Somaliland baa inta badan adeeg soo doonta iyada lafteedu marka adeegaasi mid wada kaafiya maaha bulshada ka badan saa daraadeed adeeg caafimaad oo isbitaal magaalada maadaama ay 6 maamul magaalada kaliya aan lahayn isbitaal ay tahay waxa arrin munaasib ahayd oo geed gaaban masaan sheegay hana fuulnay in isbitaalka sanadka la noo dhiso laakiin wali ka hadana culayska aan hayna laakiin wali suurtagal ma noqonin laakiin insha Allah bidna karim waxaan rajaynaynaa in soo dhaqsiyaha badan la noogu wasaaradda noo qabatay ama xafiiska noo qabtay inuu noo dhiso rajaynaynaa guriga wareed baa jira xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha noo waday guriyaas waxay ka koobnaayeen 16 guri ama ganjeel oo kuwii hore ahaa oo imika almost dhamaaday boqolkiiba la dhameystiray in xarga cidii loogu talagalay ay ka faa'iideysatay noqonayaan 4 guri baa la noogu daray oo iyaguna imika meel fiican oo dhamaada maraya marka wadarta guud waxa weeyaan 20 guri weeyaan ama ganjeel oo xafiisku noo dhisay horumarinta magaalooyinka dhismo 20 ganjeel almost imika waan la wareegaynaa waxyaabaha kale ee qorsheysan ee anagu kulli sanadka maamul ahaan wadnay inta badan magaaladu waxa iska baahan tahay magaalo xilliga roobaadka aan la socon karin oo inta badan u baahan in sideedkeeda wax laga qabto sitaa wax loo qabto ilaa 8 kilomitir ayaa sanadkan noo qorsheysnaa oo carrada la dhigo 8 kilomitir almost 100% waan dhameystirnay waxa kale noo qorsheysnaa jid ilaa 3 kilomitir oo xabaalaha taga meesha markaan nimidnay baahida ugu weyn ee dadku tabayeen waxay ahayd dhinaca gudka qashinka iyo xabaalaha oo baahi adeeg oo bulsho oo labadaba laga maarmaan yahay ka jirto xilliga roobkana labadaba la geyn karin
marka waxay ahayd in ama Somaliland la geeyo xabaalaha deegaanka kale la geeyo haddii uu lacala ay dhacdo in dee qof dhinto xabaalihii cid laguma aasi karin runtii hadduu roodo xilliga roobka meel la maraa mayna jirin marka taa qorshaan u qaadanay daraasaad baan kulli ku sameynay xafiiskii adeegu wuxuu sameeyay in design loo soo sameeyo wadadii xabaalaha taas dib noo yara dhigtay laakiin almasiimka way socotaa oo jidkii waa la bilaabay jidka xabaalahuna qorshuu noogu jiray rubcan saddexaad bay ahayd inaan dhamaystirnay isagana marka hadduuna dib u dhac ku iman kuleeyona waqtigii daahida daraasaadku dib noogu dhigay dhisanka la soo sameynayay waan wadnaa isagana imika federaalku waxa jira mashaariic kale oo ay noo wadaan oo hadda mashruucan IOM uu ka mid yahay oo dhismihiisu imika ama hay'aduhu ay wadaan mashruuca waxa wada hay'adda IOM baa fulinaysa runtii mashruucaasi wuxuu ahaa 10 sano ka hor in la dhisay ahayd sanadadii soo socday dhan uu soo jiitamay laakiin markii aan nimid qorshe waxaan u qaadanay inaan xiriir degdeg aan la sameyno cidii dhisay dhulkoodii iyo hawlahoodiina aan ku wareejino kulli magaalada maadaama magaalo istaraatiiji tahay mashaariic fara badan baa ku soo socda oo waliba inta badan dhinaca Somaliland hadda jidkii corridorkii berbere ka imanayay baa soo galaya soo kala bypasskii baa isaguna garab socda oo dhinaca ka magaalada oo hadda maalmin dambeysay aan isla eegnay sidoo magaalada maxaan ahdaa maadaama jidkan kaliya magaalada dhaxmara oo dhibaato ku hayo culays badan oo gaadiidkii kale iyo dadkii kale isku socodkiisiiba oo cidhiidhi ku yahay marka guud ahaan waxaan leenahay mashaariicdu sidii loogu talagalay ay noogu socdaan magaaladan iyo kuwa kale ee daneeyaasha ahba waxaan ugu baaqaynaa inay magaaladu tahay magaalo xasiloon jawi qurux badan oo soo jiidanaya maxaan ahdaa indhaha caalamka iyo kuwa deegaanka iyo kuwa dalkaba ayaan leenahay haddii la yiraahdo u suurtageliya marka cid kasta oo danaynaysa inay maal gashato waan u baaqaynaa inay maal gashi ku sameeyaan magaaladan si kastaba ha ahaatee muddadii uu joogay xilka maayirka maamul magaalada Wajaale Mukhtaar Maxamed Cabdi ayaa waxa ku tallaabsaday waxqabad aad u fara badan isagoo bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Wajaale ay mahadiyeen adeegyada kala duwan shacabku hayo maayirku hadday noqoto wadooyin dhinaca biyaha caafimaadka iyo waxbarashada khadar cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV maamul magaalada Wajaale